بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan YouTube channel-keena Keenan Code. aad uga barateen alaaba inaan idin soo gudbino muuqaalada quseeya IT-ga iyo farsamada cusub ee casriga ah. muuqaalka kooban waxaynu ku tijaabin doonaa farsamo cusub, farsamadaas oo kuu saamaxaysa ama kuu ogolaanaysa inaad si fudud computer-kaaga ugu isticmaasho internet adigoo aan ku xidhan wax wireless ah ama aan gelinin wax xarig internet ah. kaliya waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho USB adigoo gelinaya USB-ga computer-ka iyo mobile-kaaga. kadib mobile-kaaga ayaad waxaad ku xidhaysaa internet, ha ahaado Wi-Fi ama mobile data. waxaad u baahan tahay marka koowaad inaad USB-ga geliso mobile-kaaga, kadib waxaad la soo degaysaa mobile-kaaga qaybta sare adigoo baaraya USB for file transfer. marka aad ku dhufato waxaad ka sii dooranaysaa badhanka ay ku qoran tahay USB tethering. kadib ayaad eegaysaa waxa ku dhaca computer-kaaga taa in uu si toos ah u soo qabsaday internet-ka iyadoo aansan ku xidhnayn wax Wi-Fi ah. hadda si toos ah ayuu u shaqeynayaa si aad aragtaan. haddaan wax kasta ku qoro internet-kayga qaybta computer-ka wuu shaqeynayaa oo search inta uu soo saarayaa anigoo waliba aan isticmaalayn wax Wi-Fi ah. halka sarena uu joogo xarig network ayuu magaciisa ku qoran tahay laakiin aan Wi-Fi ahayn. farsamadan cusub ayaa ku saamaxaysa inaad computer-kaaga ku xidhiidhiso internet adigoo isticmaalaya USB una isticmaalaya hab ethernet ah adigoo computer-kaaga gelinayn xarig kale kuna xidhiidhinayn wireless. muuqaalka intan ayuu ku koobnaa. muuqaalka xiga intaas kaga iman doono. waxaan kaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sii share garee muuqaalka la wadaaga asxaabtaada, like dheh. haddaad nagu cusub tahayna subscribe.